بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد waxaan baaq iyo waano iyo nasiixo aan u diraynaa dhammaan dadka ku lugta leh dagaalka ka socda degmada Xeraale ee gobolka Galguduud in ay joojiyaan dagaalkaas aan banaanayn ee dambiga ah ee ahalgoynta ah ee wanaaggoynta ah ee aanay jirin dhinac haba yaraatee uu khayr ka leeyahay waa in la joojiyaa. waxaan baaqaas dirayaa aniga oo ku hadlaya magaca dadka muslimiinta ah ee diintoodu ay xaaraantinimaysay daadinta dhiigga, aniga oo ku hadlaya magaca culamaa diinka Soomaaliyeed, aniga oo ku hadlaya magaca dadkaas deegaanka gobolada dhexe in la joojiyo dagaalkaas. in aad ogaataan la zawaalu dunyaa ahwanu cala allahi min qatli rajulin muslim. diinta islaamku waxay u aqoonsan tahay dhiig daadinta iyo dagaaladaas aan banaanayn, waxay u aqoonsan tahay in adduunka oo dhan oo la zuuliyey oo kale qofkaasi uu dembigiisa uu yeelanayo. dhammaan dagaalada ka socda iyo abaabulada dagaal oo ka socda wadanka oo dhan in la joojiyo ayaanu ku baaqaynaa. ilaahay ha looga cabsado dhiigga. dadka culamaa diinka ah ee gacmahoodu ay nadiifta ka yihiin waxan iyo waxgaradka khaasatan kuwa deegaanka jooga waxaan u soo jeedinayaa in ay ka hortagaan arrintaas oo ay hor istaagaan iyo cid kasta oo u leh qaaqa u leh arrintaas. dadka banaanka jooga oo aan joogin kulligoodna in ay codkooda ay ku caddeeyaan arrinkaas, digista ay ka digayaan iyo diidmada ay diidan yihiin iyo waanada ay u jeedinayaan. naxariis ayaa loo baahan yahay. laa yunzacu raxmatu ilaa min shaqiy. ma aha waqtigani laa tunzacu raxmatu ilaa min shaqiy. waqtigani ma aha waqti dagaal. waqti kasta dagaalka waa xaaraam, laakiin hadda meednaan arkin in abaarta lagu jiro iyo burburka iyo baahida iyo oonka iyo qaxa. waqti ummadda ay la qaxiyo, dadka la laayo, waqti wax banayn karaahe dagaal ma jiraan. waa dagaal. hala joojiyo insha allahu tacaala. mar kastana nasiixadeenaas ayaan ku wadaynaa. cid alla iyo ciddii xiriir lale waxa dagaalka wada oo dhan kulli in ay la hadlaan oo laga celiyo dagaalka oo laga joojiyo. baaraka allah fiikum. ilahay waxaan ka baryaynaa inuu ahlul xaq naga dhigo, dad naxariis leh, garasho leh, diin leh ilahay ha naga dhigo. baaraka allah fiikum. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.